dalku dagay madaxweynaha caadi la ku jiray madaxtooyadii Soomaaliya waa ka gud madaxweynaha xilkii leesar wasaaraha waa u dhaafay wuxuu talada dalka intaan military ka hayn adiga dhaqaajinay aniga military inaan dhiso on xuduudaha iyo hawada iyo cirki dhulka soo celiyo ugu halay madaxweynuhu yiri bal arimahaas maadaama siyaasada ruuga cadaata ciidamadii hore xoog dalka ka mid tahay bal arimaha bal noo falaqay saaka بسم الله الرحمن الرحيم waxaa ka horeeya hay waxa ka horeeya waxa ummadda ay rabto ha iyo horta madaxweynuhu inuu ku shaqeeyo hay laakiin hadii wax ummadda isan rabin uu ku shaqeeyo aha ciidana lama dhisahayo lamana waxayn karo waaga tan kale hay waxaan ka soo horjeedaa aha farmaajo ciidan wuxuu dhisi karaa wadanka la wasaladeeyay nin walba calanka gaarka samaystay markuu inta ka soo laabo koorta uqunta ugu jirta laga wada bixiyo oo beenta oo qabiilku rimayay waaga taas waxay tahay shalay dawlad baa ahayd qaran baa ahayd waaga golaha ammaanka iyo midowga Afrika fiita power baa ku lahayd waaga waxaa ka adkaaday oday xunoo suldaan sheeganaya iyo nin sargaal sheeganaya qabiil hor taagan oo maamul goboleed baan ama ciidanka nagi ay guul gaaray asagoo eedadi iyo walaash iyo adeerka dilahay qorin sita wada ilaa marka la gudbo qabiilka xaarka ah oo urahayo oo hadda waliba ay siyaasiyiintu wali hadda ay gacanta u tumahay iyadoo wixii la soo maray la arkahayay yaa waxaan aad uga sii xumahay in farmaajana ciidan samaynayo niman madaxweyne Soomaaliyeed doonayaan ay leeyihiin madaxweynihii qaranka xamar waxaad ku tahay kooydo yaa waxay tahay wax lala yaabo ciidamadaas hadday daacad leeyihiin ninka kooyada ku hadlayo oo qabiil ku hadlaya ha soo xireen bilaa maxkamad gudahana ku tuureen su'aashaas waxaan ka weydiinayaa indargarad Soomaaliyeed kana mid aha xildhibaanadii hore ee ku meel gaarka ahaa xilligii hore mudana Siid Umar ku soo dhaw adiga arintaas bismillaahir rahmaanir rahiim midii walaalkii uu yiri ahayd min wasiir ahaa ayaa yiri marti ayaad ku tahay madaxweynaha taas waxa way waxaan ka leenahay bal walaalkii dib ha ugu noqdo waxaan waxay ahayd waxyaalo la soo jarjaray oo 30 minute oo soo saaray hadalkiisa wax barna ahayn oo raadi ruux leh oo raadi ruux midna maal waxaan la ogeynbo Sultan wuxuu leeyahay Siid Umar arrinka oo wasiirka aad ku eedeynaysid oo yiri wax arrinkaas ma caddo maxaa inta ku qoranta yaa soo qoray yaa yiri waxa soo qoray 30 nabadoon iyo 30 siyaasi afkiisina waa la hayaa hadii la rabo hal laga gooyo laakiin waa yiri ummadda kale qaylinaysa ama siyaasiyiinta maxaa ka qaylisay Ali Maxamed Geedi baa qaliyay Dr. Sugana qaliyay tarsan baa qaliyay lama joogaan oo Muqdisho ma joogo maxaa ka qaylisay haduu san oran wal maqlaysa wuxuu leeyahay intaas soo dhan oo madaxa qaylisay oo siyaasiyiin oo leesoo wasaarihii hore ee Geedi kamid yahay baba sheegaya arigaas walaalkii waa hadalku sida uu yiri oo kale ayaa Geedina loogu sheegay sida ninka oo hadalku ula bood ayuu Geedi ula bood wata ya ragga uu sheegay wata waa inay bartaan qofka hadalka iyo hadalka la saaro wata qof yaqaano ayaa ka hadli kara wata anigu waan naqaanaa wax hadal waa saari karnaa wata ikad marka waxay daawanaysaa ugu dambeysay ayuu ka hadlay wasiirka hore Cabdishakuur eragaas wuuna beeni annagana horaan u beenin asagoo Cabdishakuur wareysiga diibo ayaan beenin marka walaalkay sidaas oo ogaada hadalladaas dul saar okay wadanka yaa ka madaxweyne ra'iisul wasaarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafidullah iyo wasaarihi saqaariga ila khayr wade ninka khayrka wada okay labadaas ma ka yihiin xisbiyadu ama nin wasiir ama nin xildhibaano sharciyada u siisay inuu qaran wax ka sheego ama mucaarad ku noqdo asagoo xildhibaan xagee sharcigaas ku jira oo uu shir u qabto yaa yiri marka magaciisa Ashaka Qaran Cabdiraxmaan Cabdishakuur gurigiisa Cabdiraxmaan wuxuu leeyahay la yiri dalka kan waa taqaana adeerka meesha marad maraysa soo maarta hay arrintaas ka war waxaas hadalkaas wax ka jira male Cabdiraxmaan waa nin xorey وانين كتير حسبية لقد اسم مقدسه هذا هو بقى كل شيء يسا وابو رمي عادي ورقة ضوبة يكادي ما يكادي وانا فلقينا هذا واحد هايستو
قدوميها adiga hadda duubahaya ها qodha ay xirada dhulka dhaqanka ma maqashay mise moogta أنا وحنا هي صحافي لبدينا وحنا هي الدوادر اللي قيبين لكن أنا مرقاتهم إيه قبضتي وكحوا معك جوابه قصة أرنت عبد الشكور وقدوميها واحد لو تيجي صح مش غلط وقرن هاي إلا الله عيدا قرن وشنقف وقال عالم كمان جاي والله جوابه قول لي صلوا والله تشوف تعرفنا محمد الله يعيسى سنية كوي وير جنبي تركي سميني عيدا ما أنت عليك عد شمالي نقول والله كي محكمة صوصة ما الأوران كرا إن عبد الشكور ما دام الدفاعي وحول كارسو جدا قبل هذا كونفرنت ما الأوران كرا أديكو قدومي قرب جوكتا هيرشابيل لا جوجا حلول تبدو يوروب إنها تكون دفاعي خلطك كوجو ninkaas waa muwaadin Soomaaliyeed waxaa laga taageeraa gobollo badan Puntland Galmudug Hirshabeelle Koonfur haddii la Kismaayo iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel walba joogo taageera سلطان أرنت عبد الشكور ما دام أقول له هاي سيد عمر وأرن له قبضة دولتنا وعرفتي وين جنبنا يسا عرفت أسكور ما حد بيننا يسا سيد عمر qowlkiisuu hadlay anugu dhaar baan wadda ku maro waa dhaarto dhaar baa igu maqan هاي waxaan aqaanay anugu qaran isku duuban هاي laakiin ma aqaanin nin qabiil iyo qurun huwan Puntland hadduu yidhi way ku duwan tahay Puntland qaybta la socota waxay noqon kartaa qayb qaranka Soomaaliyeed say uga soo horjeedka wali uga soo horjeedka wayna jiraan oo kuma leeyihiin kuwa qaranka carbin waa dadka cashuurta qaata oo isbaarooyinka dhigta mar rabaan dawladda هذا مركو هذا مسكها عبد الشكور سيد الله حري سيد الله قريب واحد لو صحيح wax lagu saxaya qaran iyo qabiil meel ma wada galaan waa in qaranku xoog badnaada إيكال بس جواي وحكوا الرئيس مدحوينها حسن الشيخ محمود وأوجد حصوقي كذا حمر وجيستي ذكي حكتلي ساعة أو دلي مقرنة صدق waxaa weydiisaa walaalkii suldaanka hargeysa ma tagi karaa يا تيجر walaalkii suldaanka hadda hadallada qaar kood hargeysa lugtiisa ma dhigi karaa weydii أسيقع hargeysa محمد قفلا ما عمر بوها يستاهل بدلا ليه sababta ما عمر بدلا هيستاهل كيستاهل هو قروا أول قروا تو قروا تري عقب كسامرات ما أنت أسيقع المسؤول كا سقطوا يا hargeysa يا ما أنا قرني hargeysa waa tagay أوكي hargeysa ما نجح سلطانك وحوليه هاي إنه يحمر دكتور مرة وصار أفكي سكتر يمي نيكل إذا هذا سيد عمر أقول لك وحرت عشان الصوماليات وحرت ما دام علم الحوج أكمل علم ما أنت رد الساي ما حد فر له أديك ama Puntland ku jireen ama koonfur galbeed ku jireen ama Jubaland ku jireen هاي dadka xaaraan cunta oo xaaraanta bartay mar rabaan way ciidamada ma xad faraysaa maadaama ciidamada waxaan farayaa qaran iyo qabiil meel mooda galaan hooyadiin iyo aabihiin ma taqaanaa هاي waxaa idin deeqa dawladnimada iyo qarannimada iyo isteelada idin deeqda هاي aabba iyo hooyo ka tagtaan walaalkiina soo qabataan ina adeerna inaan firin qabiilna inaan u shaqayn qarankiina iyo ilaahayna aad aamintaan calankana aad ciidda ka qaataan intaasaan ku codsanaya dadka ka galluumaysanaya facebooka ee qabiilka hurinaya ee 30 sano waxaan ka tagin dib loogu celinaya ee dumar leh ee rag leh ee qabiilkii xumaa ee xaraaray weli rabo maxaad u sheegaysaa waa qoonka taajiriinta hadda ah waxay haystaan hanti aysan lahayn waxay haystaan qofkay rabaan oo ay dilaan waxay haystaan fawdo waxay haystaan maamul goboleedyo canshuur qaadaya waxay haystaan baasaboorro foojiriya mar isbana gasha haddii dawlad ay timaado qaranna waa lala xisaabtamaya taasi ku diiday maamulka hoos u soo daadegmo tii qaranka ka soo tago maamulka Hirshabelle waxaa saxaafadda saaka qoraysay in madaxweyne maxamed mikleedama iyagu madaxweynaha Hirshabelle magaciisa waare maxamed cabdi waare waxaan ka xumahay inaad ilowdid madaxweynaha nigi ee ka soo jeeday Hirshabelle adoo wareeyaa madaxweynaha xalay wuxuu la shiray qabiiladii xildhibaanadii ka joogay ayuu la shiray beelo wasiiradii waa la diidan yahay ma la oran karaa hal xaaraane mirig xalaal waa dhashaa taa waxaan ka leeyahay waa wararka hadda ninka ila fadhiyo oo fidinaya oo kale wasiirada si wanaagsan u qaybi insha Allah biidillah kariimna isbuucan ayaa maarta lagu dhawaaqaya wax maaragtay ka hor yimid iyo wax diidan inay maamulkaas hor u socwaayo ma hayno ilaa hadda marka walaalkayga halka fadhiya ayaa weydiinay su'aalaha noocaas oo kale سلطان والقرنيس ولا صعدتي ما أمرك هيرشبelle سيد القدسي من سياسي هذا من ملتري حوق الضغط كسامري هير سرقة سامعين هير سرقة كسامري هاي
qurba joog baa hadda tahay maamulkaas sidee lagu dhisay maamulkaas dowladda federaalka ahaa dhistay maamul dadku isu yimid oo isdoortay ma ahayn waa gartay waxay ahayd maamuladii rabay in lagu soo maamulka ayaa dhisay marka waxaan u arkayaa hala qaybsanad oo lagu doonaa meediyuu ku jiraa hay maamulada horey u dhisnaa iyo kuwa xasan sheekh soo dhisay maamuladaas hirshabelle yaa dhisay qarashkooda iyo amnigooda iyo siyaasadooda wasiirada dowladda federaalka ka mid wasaaradda arrimaha gudaha ayaa joogto ku jira wax la beenin kara waa sax waa loo baahan oo amnigeedana sugaysay amisomna waa sugaysay dad ayagu amnigooda sugtay oo isku filan may ahayn ya kursiga lagu fuulay kursiga ayaa lagu fuulayay xildhibaanada laga rabay waana la waayay xaqiiqada qarankii ku dhacay qarankana waa ku dhacay hase ahaatee aan ka baxo igu xirma waa gabagabaynaysaa kama bixin dadka jawhar dega iyo dadka hiiraan dega dowladdii dhexoo burburtee Soomaaliya labada gobol oo ugu wax soo saarka badan bay ahayd afar gobol oo ugu wax soo saarka badan jawhar oo gobolada dhexe sababay salka biilo hiiraan gobolka Bay iyo Bakool gobolada Jubbooyinka afarta gobol iyo dad iyo desertin wadanku ahaa afartaas gobol waa isku filnaan karaa goboladii wax la tari jiray ma ahayn raashinka militariga halkaas ka soo bixi jiray iyo dhaqaalaha dowladda sida Umar wuxuu leeyahay in maaragtay qurba jooga ay ka soo jeeda maamul goboleedka ama dowladda Puntland sida loo afka qabto kama soo jeeda haybo waxaan ka soo qabiilka ka dhigay Soomaaliya qabiilkaygu waa meel oo waa saad sheegtay laakiin aniga qaran Soomaaliyeed baan doonaya hadday doonayaan waa la rabaa hadday qaran Soomaaliyeed rabin laba rabo kama tirsan igu xirmashaas sid wuxuu leeyahay waxa lagu dhisay Hirshabelle waa macmal in raallinos kama ahayn dadka reer Hiiraan dadka reer Jawhar kursiga madaxweyne Xasan ku fuulay doontii asigay la shiiday ولنا معمل كي كجران مقدي كجران الله كسر ودعيني يا سلطانك الله كسر تاو حلي بريهم بواركتي ورارك يو تورنا الله تلفزيون هذا وناجي وحلقة شيء حسن وقبتي نين موادن وها ملحوني هره أقول كيسي يوحتر كيسي وعنوان لارك سلطانوكاي ضد ضد كان waxay daawanay boqol qof ay daawanaysa boqol TV ayaad ka arki kartaa iyo maaragtay website wax boqol xasan waa nooca soo madaxweynaha midda kale Hirshabelle ninka uu ka naxsanaa maalintan isku nimid Jawhar iyo Hiiraan markii isku imaanayeen waxa uu haragii ka naxsanaa oo laha maamul ay sameeysanayaan waxaan tusaynay awood Ilaahay iskale inaan wax dhisan karno alxamdulillah waan dhisanay madaxweynaha sameeysanay madaxweynuhu wuu shaqeeyay waa la casilay haddana madaxweyne ka awaara ayaan maaragtay madaxweyne noo oo aan taageersanay wax dhiba oo ka jira Hirshabelle dhexdeedana ma jiro wax la marka waa dulusho socotaa taas waxay dhahay marqaati kaaga mar hadduu kicinayo warshadii sokorta Jawhar waxa taagantahay ala 10 raxda maqris dhulkii qasabka ka baxayna shacabkii inta loo yeeray la hanuune oo leer dhulka baneeya isku soo duubto waxa taagantahay ala 10 raxda maqris waa dareemi kartaa okay Sudan aan ka gudubna madda Hirshabelle maamulka Puntland waxa jira dagaal ragaadiyay ee hadda socdo oo madaxweynaha Cabdulle Gaas oo ka tagay gaalkacyo oo hadda ku dhex jiro dagaalkaas yaa ishaay maasa ka dhaxay intoos ka yimid intoos ku dhamaa kara hadda fiirs maadaama aad tahay qurba joog meeshii aad u duleeshay la socotid aan kugu jeclaa qof qalbi fiican oo dad u siman yihiin kana naxay dhiigga ummadda Soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم دجال كاس وبيلو وضع شيء هرتا وهل بيرسكوا هاي حساها تي لبض اللي نعبا سيدان كور قبله وحل اسكوها يو اي كعبي نمان هدا كور لك الدلي هاي حساها تي هدا دنبقى وحا اسكال مامولكا بطلة هاي oo gardarrada lahayd waxay ku lahayd wixii lagu heshiiyay oo hore in dawladda Puntland ay reeriyaha ka doonto ku kala qaboojiso oo ay bixiso sidii hadda ka hor beesha Somaliland sheegata ay markay dagaalameen bahar samee iyo qiyaab madaxtooyada ay bixisay lacagtii iyo markii iyo abaar ay hayeen aysan hanti ahayn dar ilaahayna ku kala qaboojisay ayaa waxa laga rabay maamulka Puntland madaxda sare maadaama ay la hilban yihiin oo la dhasheen
inay sidii Soomaaliland oo aysan la dhalan walaaltinimada u samaysay ay samaysaan laakiin Cabdiweli halkaas waa ku bariiqday waana ku fashilmay hadda markii arrintii dagaalkii u dhacay oo la islaayay buu Putin la yimid wuxuuna yiri waa ogolahay halkaas waa laga diiday hase ahaatee hadda waxaan codsanahayaa oo baaq u jeedinayaa inay heshiiyaan beelahaas walaalaha ah ayadoo aan maqlahayay Puntland qaarkeed inay lahaayeen siyaasad baa ku daaban oo dhinaca Soomaaliland ka taas waa been Soomaalilandna kuma daabna annaga sheegayna annaga ka warqabna Puntland dhexdeeda ayaa dhibaato ka jirta waad maqlaysay leelkasi oo ka baxay maamulkii asoo kala soo furhaya maamulka Cabdiweli oo dekadaha horgaranaya qabiilka laaluushka u siinayo yaana keentay ummadana isku diraysa marka waxa leedahay arrintaas waa arrin beelad wala heshiinayaan arrin beelad wala heshiinayaan arrinta federaalka hadana aadii faroore arrinta guuxa ka socota maalmahan waa ka hadlay waa ka war mutira soo saaray arrimaha maxaa kala socota faroole waa aqal sare warda waa nin madaxweyne soo maray wax badanna waa og yahay waana la socdaa dadkii dastuurka wax ka qoray weeye oo wixii laga leexiyey sheegi kara haddii loo baahdo oo hadda nool marka anigu hadda lama joogo dastuurkii ma akhriin qodobo ku khaladana ma hayo iyo qodobo sax laakiin faroole codkiisu waa dhageysanayay waxaan filahayaa marka dastuurku wasiirna waa leeyahay dowladna waa leeyahay halkaas waxaa la socdo oo waxyaalo ka taabanaya mudana rugacday Soomaaliyeed hayay ku soo arinta oo ka gaabsanay maadaama wiilshada waxa sheekay waxa jira oo sheegay halkan waa gaabay maamulka Puntland waxaanu leenahay shalay markii waxaa la sameeyay dastuurkan oo hadda ku dhageeyay waxa ahaa dastuur gurubiyada isku yimid maanta maamulada jiro Soomaalidii aqoonyahanadii yimid wax alla waxaan diyaar u nahay in laga bedelo wax alla wixii maaragtay wax dhibayo qaranka Soomaaliya in laga toodo dastuurka hore oo yiri faroole taas ayuu diidan yahay oo ka soo horjeedaa oo wuxuu rabaa in asaga gacanta ku hayso tii hore uu qortay asaga in wax laga bedelo in aan waxba laga bedelin waa cadkaan cun ama carreey bawaad taas sultaanka beenay taas ana beeriyay ummadda hadday isu timaado waxbay ku heshiisaa waxa diidan oo hadda dastuurka qodahaya waa gurubada qarannimada Soomaaliya in dadku mar kale iska hor yimaadaan raadinaya sababtoo ah wixii shalay lagu heshiiyey wax ma ku socdeen oo ma ku dhaqaaqeen ma ku yimaadeen Soomaali khalad laga waayay mahayay inta ugu badan 85% waxba ku dhashay madaxweynayaal baa ku yimid wixii marka lagu soo tiriyay tacbeelay nin shalay iska fadhiyay waxna ku darsan ama hadda yimid inuu yiraahdo waa ka soo horjeeda waa baabiinaya sababtoo ah asaga baaba ku fadhiya laakiin ummad baa ku nabad gashay sharciyaal ku dhacay sidoo aaminsan yahay garow 1 iyo garow 2 inuu meesha lagu hayo waxa la balaariyo waxna lagu daro waxna laga dhimo one two three aaminsan tahay waa garow 2 qandaal akoon aaminsan tahay waxba ku yimid hadday garow 2 iyo hayd waxba ku yimid okay wixii ku yimid ma la halay karaa iyadoo la halay ayaa wixii qalad ayaa laga saari karaa oo la saxaya oo yaa la saxiidiyo diidayay saxiidu diidan yahay wixii qalad laga saaro oo hore lagu qaldoomay qalad badan baa jiro gacmaha shanta farood Ilaahay ku siiyay ma sinno way kala duwan yihiin marka qaabsiga sayidku waxa la sinno xilliga maaha dowladda federaalka dagaal bay ku jirtaa waa la socotaa in madaxweynihii tuuta qabo ninka hadba qodob soo furahaya oo istaafka keenaya inaan wadanku xoroobin oo qarannimo la gaarin buu rabaa ha uu kaadsho xilligeeda markay noqoto oo la soo hor fariisto oo kooxaha ka soo horjeeda laga takhaluso dastuurkana ha laga hadlo Soomaaliland baa maqan oo dastuurkan wax ku leh waa la furahay inay ka soo qadaan baa rabaa laakiin dalku wuxuu ku jiraa xilli qolaadeed iyo dagaal howlgal ku jira san la socoto dib inta loo dhigo wax ummadda hadda shaqaaqa gelinaya in la geliyo waa kooxaha ka soo horjeeda hadba inay meel wax ka furaan siyaasadana aragti dheer aan u lahayn
qarannimadana aan wax ka aqoon waxna ka soo dhistay meesha sugu xirdood waxa soo galay siyaasi Soomaaliyeed magacaagii meesha aad joogtay adoo ku bilaabay iyo barnaamijka la socdo aniga waxaan joogaa wadanka waa ka jaray waxa waaye nin ruucadaay oo wariyaasha saxaafadda ka mid ah Muqdisho si toos u daawanaya waa ahaa kana mid ah dawladda Soomaaliya wariyaasha SLTV ka shaqeeya meesha sugu sida wuxuu leeyahay suldaanka maxaan miraheedu la guranayo waa 1 2 3 garwal guranaya dadku inay magdhaawaan ee dadku waxay u soo sameeyaan u garaabi waayeen ma aha anaga ama aan balbudna noqon ama aan dawlad budna noqon jiritaanka ummadan u taagan hari habeen oo geed furay geed u fulayna dadku ma aaminsan inaan balbudna idaadinayaan midnimo iyo maandeeq waxay aaminsan dadka inaan wax aan aqladaynayn okay ugaas hiriyo soo dhow buntland waxay kala saari laadahay ha dastuurka ay leedahay Iki maamulka buntland Iki Muqdisho. iyo dastuurka Soomaaliya. federaalka oo Soomaaliya iskaga darsoomay labadaas iskaga darso faganimo mid soo galay kan ayaga ay leeyihiin maamulka buntland ay leeyihiin cid ku faragelinaysa male hay laakiin kani Soomaaliya oo ka dhaxaya waxa weeye Ugaas soo wixii dhow. ay soo sameeyeen hadduu qalad ku jiro waxaa diyaar loo noqday oo qoyahana diyaar u yihiin in wixii madow iyo qalad in laga saaro hay halkii kaga dhigiyay kan haysto kana waa haysanayaa hay markan waxa marka leeyahay walba kala saara dastuurada iskaga qaldoon labadii iskaga qaldo marka waa in la kala saaro ugaas nin hadda soo toosay ha hundree hadda la toosay hay 7 sano Hay. wax lagu shaqaynayay ma jira nin hadda soo toosay oo xasan sheekh kaamay ha tamaam u soo sameeyay aha oo amson waardeeynayay ha wax dad sheekii lagu soo dhisay dhaqaalaha Soomaaliyeed Ah. iyo cashuur Soomaaliyeed Ah. hal kursi waxna ma keeni karo lama qabo waxay noqonaysaa baaqimoy waa hal dacad kulis aana laga badiyayaan cil laga waa hal dacad kulis dadka marka noocaas Ah. dowladnimada wax kama yaqaanaan shiid wuxuu ku waxna yiri ma dastuurkii akhriyaan. Soomaaliya dastuurkii maandeeq ee Soomaaliya la diyaariyay iyo waxa iskaga darsoomay midkii yaraayo ayaga daladooda ahaayo kuwooda ku dhisteen labada dastuur askari yaal marka uu rabo inuu soo qabsado kii Soomaaliya kii Puntland oo soo qabanaya oo sidoo leeyahay dastuurka yaa ilaaliya Puntland baa ilaalisan dowladda federaalka ya fadlan ka ilaaliyo okay federaalka iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha buuqa ka baqashay Maya. iyo gudoomiyaha baarlamaanka isma qalabsan mise qalabsan yihiin Waa maya. waxay dastuurka sheegayaan mara maya yaa wada Turkiya ku shaqale halkaana waxa dood Yaa, ku shaqale. waxaan galaynaa waa ugu dambeyntii waa dadkii waa guntii ganaanad dadka galahaya waa dadka waa guntii ganaanadkii waa hadda soo toosay waa guntii iyo ganaanadkii hoos ayaa ku shaqale iyo jawaahiri kuma shaqaleen ummadda Soomaaliyeed baa leh shakhsi balad dastuurka ummadda Soomaaliyeed waxay moodaa inay socoto in waxaan ku soo ganaanadaynaa maamulka la yiraahdo cadaaladdu hadda ay dadku u arkaan ee la yiraahdo galmudug state ay israaceen dadkii in badan is haystay dowladdii shariif ku soo fashilantay tii xasan ku fashilantay haddana ay israacday arkaysaan inay isku tanaasuleen inay gacmaha iswataan in la isku furay xuduudadii in tii xitaa gaalkacay